farxad weyn ayay noo tahay taageerayaasha xulka qaranka Soomaaliya maadaama 17 sano jiradana ayagana dhibcay soo qaateen xulkeena qaranka Soomaaliyana ay badiyeen inay ka badiyeen Bahrain ciyaartii ugu dambeysay hadda ay ciyaareen 17 sano jirada tartanka Sakafa ay u tartamayaan 17 sano jirada ee East Africa ayaa waxay galeen Barejo waxayna la galeen Kenya ciyaar ka horeysay ayaa jirto sidoo kale u bixin South Sudan waxay rabaan in ay koobkan difaacdaan South Sudan Barejo ay la galeen laba ciyaareen laba ciyaarna waxay ka wataan laba dhibcood waxa rajeynaa ciyaarta dambe inay badiyaan maadaama ay ciyaarahan hadda ugu dambeeyay goosha lagu hormaray kadibna ay raadinayeen Barejada taasna waqti ka qaadanaysa waxa rajeynaa markaan in goosha la hormaraan xulkan qaranka Soomaaliya waxa wato tababare daayar ee u soo ciyaaray qaranka iyo soo kalena soo tababare kooxaha soo kalena Soomaaliya ka soo ciyaaray sanadkan 17 sano jirada dhiig cusub ayaa u soo baxay waxaan rabaa ayagana inay markooda qaadaan koobkan inay geeyaan caasimadda dalka oo dhan soo laabano xulkan qaranka Soomaaliya ee da'da waaweyn 7 sano ku dhawaad guul maysan gaarin laakiinse ugu dambeyn guul ayaa imaatay oo xulkan qaranka Soomaaliya wuxuu ka badiyay Bahrain marka ciyaartan ciyaar xamaas leh ay ahayd oo isku tijaabinayaan maadaama xulalka badankood ay ciyaarayaan koobab iyo soo kale friendly ciyaarta marka waxay ciyaar saaxiibtinimo ahaan wato xulkan qaranka Soomaaliya لاعب هوري xulka qaranka iyo sidoo kale ciyaartoy hore Soomaaliya marka sanadkan tababarayaal Soomaali ah ay heleen hadii noqon lahayd 17 sano jirada iyo xulka waaweyn waxa rajeynaa kubadda cagta Soomaaliya inay kor u kacdo xulkeena qaranka Soomaaliya maadaama ay ka badiyeen Bahrain waxa ka badiyay Saudi Arabia waxay ka badiyeen Argentina oo World Cup ki qaaday 2022 Soomaaliya World Cup way qaadi kartaa Soomahan let's go xisaabtu waa noo saxan tahay